noloshu haddaad isbeddel ka rabto 3 shay baa laazima baa la ydhahaa. mid waa inaad rumaysantay in takhyiir dhici karo, isbeddel inuu jiri karo. waana dhalad marka adag waa been. waa inaad rumaysantay in isbeddel jiro. qof waliba uu isbeddeli karaa. ilaahayna diintan wuxuu soo dejiyey in dadku isku beddelaan. ka labaad waa in iraada jirto, doonitaan. qofka aan isagu rabin inuu isbeddelo dee isma beddelayo. ka saddexaadna waa in qaraar ficliyi jiro, go'aan waa inuu jiro. maanta masaajidkaad soo gashay, wixii aad samayn jirtoo dhan waad ka soo foqday. go'aan ha ka ahaato oo ramadaantaasi sida ay kuu beddeshay halkii ha ku noqonin. ramadaan intaad ku jirtana wax ku mashquuliya dubnad iyo laadho iyo sigaar iyo wax la cayaarayo, waxaasi oo waxaad ka soontay ramadaanta ha ku beddesho. marka markaynu ramadaanta dhammaysano ilaahay dembigeenna ha dhaafee, waa inay noqonnaa dad qumman oo waddadii toos u qaaday. markaa go'aanku inagu inagu xidhan yihi. go'aanku aduu kugu xidhan yahay qof waliba. cidina labada gacmood kuma hayso. qof waliba wuxuu go'aansadaa buu leeyihi, ilaahayna kaasoo ka abaalmarinaya. innaa hadaynaahu sabiil ayaa ilaahay tilmaamay. faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha, labaduba waa cadyiin.